بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، maanta cinwaanka ama muxaadarada aynu ruuxiga ah aynu qaadanayna ku kulanay waxa ay ka jawaabaysaa hal su'aal. su-aashaasina waxay tahay الرقابة لمن؟ الرقابة لمن؟ kormeer iyo riqaabo yaa iska leh. waad aragtaan wadamadan aan joogno, meel walba CCTV camera ay ku xirteen. CCTV-gaasa iyadu waxay tahay riqaabadii bay u haysaa, ilaa qiyam iyo mabaadi iyo wax kaleeto oo markaas dadkan kala hagaya bacdama ay iska yar yihiin. waa laga yaabaa inay qaar jiraan, laakiin kameradaasi hawl bay u qabataa nisbiya. inagu ka mujtamac islaami riqaabadeenu xaggee bay saaran tahay? yaa kormeerka iska leh? arrintaasaynu ka jawaabeynaa oo wuxuunaan iska odhanaynaa. lidalik tasarufaadka basharka iyo nolosheenna oo dhan waxa ay hal dhinac u socon kartaa, waxa ay waddo qabsan kartaa marka qofku uu garanayo cidda uu raali gelinayo, marka uu garanayo in iyadoo aan la maqlayn ama aan cidi u jeedin, hadduu isku dayo inuu wax kharibo, awood kale oo la socotaa inay jirto. in mar walba xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisu ay muraaqab yihiin, qofku marka uu dareemo ayuu naftiisana u hiilinayaa oo u badbaadinayaa oo ilaalinayaa, mujtamaciisa iyo bulshadiisa iyo umadweyntiisana uu badbaadadeedii yani ka qeyb qaadan karaa, isaga oo riqaabadaas hoos harsanaya. nebigu wuxuu xadiid saxiixa ku leeyahay sala allahu calay wasalam, 7 hooska rabbi maalinta qiyaame harsanaya waxaa ka mid ah rajulan. marka nusuustu ay rajul ka hadlaysona waxaa loo jeedaa jinsi lbashar, nin iyo dumar loo kala saari mayo. ruux bini aadana oo xasuustay ilaahay, dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah. ilaahay buu xasuustay iyo weynadiisa iyo cadamadiisa, markaasuu ilmeeyey. fafaadat caynaah, wuxuu ku mutaystay inuu mansiladaas ku gaaro. mujtamacaadka iyo sida ay qiyamka u kala qaataan iyo qofka, iyo in mar walba jawaabtaas su-aashaas alriqaabatu liman haddii jawaab loo helo inay u noqoto xal ama xuluul mashaakil fara badan oo ijtimaaciya, ayaan wax uun ka tilmaami doonaa insha allah, si ruuxiyana aan u sheegi doonaa biidn illah. waxaan tusaalaha koowaad kusoo qaadanaya, maxaa yeelay bilmithaal yatadixu lmaqaal. marka tusaale yimaado, marka examples laga soo qaato noloshii saxaabada, noloshii waaqicii muslimiintii horeeta, marka inaga rol modelka inoo ahaa, ayaa waxaa soo baxaya in xaqiiqada meeshaynu u jeedno aynu fahano, jawaabtu halka ay ka dhowdahayna aynu hayno. waqtigii dagaalkii beder kadib ayaa waxaa dagaalkii beder dabcan waa garanaynaa inuu dhex maray muslimiintii iyo kufaaru quraysh iyo reer maka. dadkii odayada ahaa ee meesha lagaga soo qafaashay iyo dadkii ku dhintay dagaalka reer quraysheed ka mid ahaa, iyagoo xusaya ayaa waxa maka kacbada dhexdeeda fadhiistay safwaan ibnu umaya iyo cumayr ibnu wahab. cumayr ibnu wahab iyo safwaan ibnu umaya ayaa waxay fadhiisteen saxni lkacba, kacbada meel rukni ka mida bay fadhiisteen, iyagoo ka sheekaysanaya qatlaahum fi beder, dadkii lagaga dilay beder
iyo wax khasaarihii kasoo gaaray Beder iyo dadkii laga qafaashay iyo muslimiintu dhibta ay soo gaarsiiyeen bay ka sheekaysanayeen. marka labaduba waa mushrikiin waqtigaas ay halkaa fadhiyaan. markii arrintu kululaatay oo Cumayrna ruuxadiisa wiil uu dhalay Wahab ibn Cumayr la qafaash uu ku jiro dadka muslimiintu haystaan, ayaa Cumayr wuxuu yidhi wallaahi haddii aanan ka cabsanayn reerka cidaan ku dhaafo, haddaanan waayin reerka cidaan ku dhaafo oo aan helayo cidaan reerka uga tago oo mas-uuliyaddii aabenimo iga sii daboosha, ama aan helayo cid daynta laygu leeyahay iga sii guddaho iga bixisa, maanta inta dhaqaaqo oon Madiino tago ayaan Maxamed iyo dhibtiisa kasoo kaafin lahaa reer tolkay. Safwaan ibn Umayya oo nin maalqabeen oo kaaba qabiilahaa baa wuxuu ka faa'iidaystay fursaddii. markaasuu wuxuu yidhi aniga ana laha, anaa hawshaada, waa og tahay de in aan reerkaaga iyo kuwo kaleba masruufkooda qaadi karo, dayntaada iyo midka badanna aan gudi karo. haddii aada hawshaa u baxaysid anaa hawlahan adiga ku dhibay oo dhan kaa reebaya, ee orodoo hawshan waa muhiime soo qabo. waxay isku ballansadeen in arrintaas labadooda isla ogay aan qof saddexaadi aysan u gudbin. way ku kala tageen. meeshaa ay fadhiyaan cid kale oo la joogtay ma jirin, cid ka agdhaweyda warkooda maqlaysay ma jirin. halkii bay ku dhaqaaqeen. Cumayr wuxuu isu diyaariyey inuu socdaalkaas u baxo oo safarkaas u galo si uu nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam u soo dhiibo, isagoo u aaraya odayaashii laga laayay reer Maka. markii uu Madiino galay marka dabcan Safwaanna hawshii intii dhinaciisa kaga aadanayd buu u qumay oo deyntii iyo reerkii iyo wixii mas-uuliyadu kaga tegay Cumayr ayuu isna dhinaciisa kasii qabtay. waa dhaqaaqay Safwaan Cumayr, Madiinuu tegay. Madiina markuu tegay ee uu arkay masjidkii, yani Cumar ibn al-Khattab iyo saxaabada qaar kamid ah waxay fadhiyeen masjidka banaankiisa, meel ay ka arki karaan qofka dibadda iyo daaradda jooga. wuxuu arkay Cumar Cumayr ibn Wahab oo hashiisii fadhiisinaya, ratigiisii oo xaggii seef galku ka baxsan tahayna wato soo socda. markaasuu wuxuu yidhi ninkii Cumayr ahaabaa yimid, waana ogahay inuusan waxaan sharahayn la socon. saxaabadii buu la hadlo wuxuu yidhi odayo isku hareereeya nebiga sala allahu alay wasalam oo ag istaaga si uusan ninkani wax u gaarsiin. isaguna wuu ordo Cumar wuxuu u tegay nebiga sal alla ly slam markiiba. markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahay ow ninkaasaa yimid, shar buuna u socdaaye maxaad ifaraysaa Cumar? nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam soo kaxay oo ii keen. meesha aan u socdaa halkan ay ka bilaabanaysaa. marka nabiyullaahi Maxamed sala allahu alay wasalam markii lasoo hor istaajiyey Cumayr ayuu su-aal weydiiyey oo wuxuu yihi Cumayr saaka maxaa ku keenay halkan, maxaad u timi? markaasuu wuxuu yidhi waxaan u imi wiilka aada iga haysataan. markii uu Cumayr Safwaan la hadlayay buu wuxuu yidhi qiil aan ku galo madiinana waan heli karaayo, haddii lay weydiiyo waxaan dhahayaa wiilkaygii baan u imi inaan u shafeeco qaadood ii soo daysaan. wuxuu yihi markaa nebigu sal ly slam Cumayrow maxaad halkan u timi? markaasuu wuxuu yidhi waxaan u imi inaad iisii daysaan wiilkayga. ma arrintaasaad u timi? oo arrin kale uma socon. nebigu wuxuu weydiiyey marka hadal. wuxuu yihi ma idin adiga iyo Safwaan ibn Umayya meesha noocaasa intuu meeshii u tilmaamay aada fadhiisateen aydin warkaas isla keenin oo sheekadu markay halkaa marayso aydin go-aan ku qaadan inuu isna adiguna aada sidaan tiri isna uu yihi anaa kaa kafaalo qaadaya. yani warkii meesha ka dhacay oo dhan buu u sheegay nebigu sala allahu alay wasalam. ninkii halkiibuu ashhaadadii ku qaatay. marka taradud la-aan waxaa caawinayay marka dhowr arrimood ay ugu horeyso uguna weyn tahay mujtamaca uu Cumayr ka soo baxay ayaa wuxuu ahaa mujtamac ahaan marka horeetoba caadaad qaarkood dad ka nadiifa, ama qofka uu la tacaamulayay ayuu wuxuu ku ogaa
inuusan warka si fudud usii dayn karin. waayo cumar ibn khataab radiallahu canhu maalintu islaamayayba intuu ku dhex wareegay dadka iyo wuxuu yihi yaa ugu warqaadid badan oo aan maanta warkayga usii dhiiba. uu helay ninkii uu fariinta u reebay oo yihi oo u sheeg odayada Quraysheed inaan muslimay. yacni dadka warka naqliyaa way xadidnaayeen, mujtamaca dhexdiisana way ka caabaysnaayeen. ninkan odaga ah oo saaxiibkiisa oo halkan lasoo fadhiistay ayaa warku dhinaciisa ka fakaday oo intuu warkii aada ku ballanteen sii daayay qolo kale usoo naqlisay oo usoo rartay Maxamed sallallahu alay wasalam. tuhunka noocaasan agtiisa ma iman. markiiba wuxuu kaga jawaabay wallahi aniyo isagun baan ahayn, waxaanu ku ballanay warka inaanan gudbin, de aniguna ma gudbino waa aniga kula jooga, isna waan hubaa inuusan gudbin. marka warkan waxa uu kaaga yimi xagga samada. waxaa jirtay riqaabo kale oo na ilaalinaysay markaan labadayada ahayn, awood kaleetaa jirtayna kor taagnayd. halkii uuna markaas ninkii ahaa Umayr ibn Wahab ku islaamay. macnaa waxa weeye xitaa tasarufaadka khaldan iyo go-aanada khaldan marmarka qaarkood waxa ay imanaysaa qofka muslimka ah ee jawaab u haya alriqaabatu liman wax badan ayuu ka warwareegayaa oo ka xishoonayaa. waana tan keentay in Cumayrba uu halkaas isaga oo su-aashii ahayd alriqaabatu liman jawaabteedii helay oo ogaaday in labadoodu marka ay halkaa fadhiyeen maa yakunu min najwa 3 ilaa huwa raabicuhum walaa 5 ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akthara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu. in ilaahay uu mar walba iyo meel walba iyo wakti walba uu kula joogo isagu ku ilaalinayo. cidda mar walba aada ilaalinaysid oo aada ka cabsanaysid ood arrimahaaga oo dhan ku xaq dhowraysidna ay tahay Rabbulciza jala jalaaluhu. halkiibuuna ku qiray shahaadat alxaq. haddaba waxaan yar isdul taagaya intaanan mawduucan ka bixin. Safwaan ibn Umaya wuxuu la ballamay Cumayrna kula ballamay in uu dayn bixiyo ubadkiisana biiliyo. markii dambe loo soo sheegay inuu Cumayr Maxamed raacay sallallahu alay wasalam, ballankiisii sidii buu ugu taagnaayo kama leexan. mas-uuliyaddii la saaray iyo reerkii ma oran markaa inuu yani caradii uu u qabay Cumayr ilmaha iyo reerka kulama dhicin sida maanta dhacda. qiyam baa jiray kaleeto oo la cuskanayay oo inaga laga yaabo inay maanta in badanna ka maqan yihiin. laakiin mawduuceenu waa alriqaaba iyo muraaqabada cidda iska leh oo ay tahay mar walba in Allah jala jalaaluhu uu yahay huwa almuraaqib. isaga ayaana yaclamu dabiiba annamlati sawdaa fi sakrat asamaa fi leylati adalmaa. ilaahay jala jalaaluhu waxa uu ogyahay xarakada iyo socodka ay samaynayso quraanjada madow oo dhagaxa madow ku dul soconaysa habeenka mugdiga ah. markii horeba waa quraanjo, waa intay la eg tahay waad garanaysaa. madow bay ku darsatay, dhagax madow bay ku dul soconaysaa, habeenkuna waa mugdi. ilaahunbaa og oo halkaa ku og. markaasaa nabiyullaahi Sulaymaan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu maqlay quraanjo noocaasoo waxay odhanaysaa subxaana alladii yaraanii walaa yansaanii, subxaana alladii yaraanii wayaclamu makaanii. waxa xumaan ka nasahan allaha i arkaya oo booskayga og, yarzuqunii walaa yansaanii, oo halkaa igu irsaaqayo oon igu ilaawey ayaa xumaan ka nasahan. riqaabada noocaasa qofkay dul saaran tahay wax badan oo tasarufaad ah oo dadiska eeg ah ayuu ka leexanayaa isaga oo raalli ahaanshaha rabbi raadinaya. waayo taariikhdu in badan bay inoo xustay namaadij noocaas oo kaleeta ah. waxaa tusaale mudan Cumar ibn al-Khattab radiyallahu canhu waqtigii uu ahaa amiir almu'miniin ee uu maamulka muslimiinta tawaliyey, wuxuu caado ka dhigtay inuu habeen walba magaalada kormeer ku sameeyo si uu u ogaado axwaasha dadka. madaxweynaha dadka ka hor seexda ama
مسؤوليات كاسي أي سنسارنين مو أهين وحو أهان كي أولانيي لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر يوم القيامة. هدي بغلة يدا بدي أي كسب بريحته وضد كل حماته عراق وحن كبقيا إن لي ويديو اللي هذا عمر ومحاجدك وجوه باجين ويدي وعمر مدينة جوجة أيها وحلو بغلة عراق جوجة مسؤوليات بقى قصارة هدي وضد كل حماته ودقح لسيبتونا وحن كبقيا إن قيامها اللي ويديو marka magaaladii uu ku noolaa buu kormeer ku hayaa oo waardiyeynaya ilaahay dartiisuna uu sameeyay iyo riqaabada rabbiga dul saaran isagoo tixgelinaya cid kale iyo suldo ka sarreysa oo hadii uu sameey waayo eriyaysa ku tixgeli kamay ahayn waxay ahayd rabbi raali ahaanshihiisa raadi oo isaga riqaabadiisa ka wareegso oo yuuna kugu arag wax aan farxadiisu ku jirin oo uusan rabbi raali kaaga noqonayn isagoo socda marka habeen habeenada kamid ah ayuu wuxuu ku tiirsaday ayaa kutubu taariikh soo rarta guriyaha kamid ah ayuu cuskaday wuu daalay markaasuu wuxuu maqlay gabadh iyo hooyadeed wada hadlaya waxay leedahay gabadhu hooyadii baa waxay tiri umduqi allabana bilmaa hooyo caanaha biyo inuu ku barax oo biyo ku dar si ay inuu ku bataan oo beri suuqa markii la geeyo aynu faa'iido badan uga soo helno gabadhii yareed ee mu'minada ahayd baa waxay ku tiri ummaahu hooyo haddii aan ku barxo biyo caanaha yani hooyo waxay tiri hooyo amiir almu'miniina cumar nahaana can dalik hooyo amiirkii mu'miniinta cumar arrintan wuu diiday markaas ay hooyadii ku celiso waxay tiri wahal cumaru yaraana وهاي عمر ميو نوجه ذا كل جانب جونا أو شيء أنا مسميسنا عمر وهالعمر يرانا هو يوم من هذا يهدي هذا الروح حد يدو هاي عمر ميو نوجه ذا مركي تريه قبله يكون عرسي ويتري الله إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا هو يهدان عمر أنا أركي عمر ربي جيسا نوجه ذا أنت مركي قبله يسوع صارتي هو يدي dib isugu noqotay markaas ay gabadheedina u mahadnaqday oo tiri jazaakillahu khayran Umar warka iyo dooda markuu maqlay dib uu uga noqday subaxdii markuu waagu bariyay wiilkiisii Caasim ayuu wuxuu ku yiri orado gabadha guriga joogta doon oo guurso waa gabar mu'minada oo riqaabada ilaahay ilaalinaysay Caasim gabadhii uu guursaday duriyadooda markii ay isguursadeenna waxay u dhashay gabar la yiraahdo Layla sida kutubu taariikh ay soo rarayaan Laylana waa tii dhashay Umar ibn Abd al-Aziz al-Khalifa al-Khamis dadkaas marka waxa ka soo baxay duriyatan tayiba natiijada meeshaasna waxay ahayd iyo gabadhaaba uu Umar ku doortay inay tahay gabar mu'minada oo khalad ijtimaaci ku dhici lahayd iyo bulshada dambi ay ka gali lahayd bay waxay uga joogsatay iyadoo ilaahay رقابتيسا كفكريسا إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا إن عكلا إسلا عمر وريقيا وكرمير كيوضا أيها بين كلا تروح مغليا كبر وحا أي درين كذا عبريسا كاسي يوحي لهذا تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا رب غيره لزحزح من هذا السرير جوانبه وكبر مسلمة وحاج كذي يزوج كذي وكم دي هيدت كام مسلمين تأهى فتوحاتك يدقالك يغزواتك وذا وحين هذا هي مركع مدبا ذنب حاج كذي كم مغنى لكن وحي دريميسا إن وعاول للجوب لها وحي لها الدي آن إلهي habeenkii baa dheeraaday meelada tataawala hada al-layl wasbada janibu habeenkii uu dheeraaday oo mugdi buu noqday wa arqani allah khaliila ulaa'ibu waxana aad ii dhibaysa inaan saaxiib garabkayga jiifaan jirin fa wallahi lawla allah la rabba ghayru wallahi hadaan ilaahi ka baqay oo rabbi muraqabadiisa iyo inaan ilaahi tixgeliyo aysan meesha ku jiri lahayn la zuhziha min hada sariir jawanibu mid sariirta ruuxan kan salaha يعني maxay u tiirisay inay khaladka ku dhici weydo ilaahay muraaqabadiisa
عمر مركي ونقضي صباح دي وحوتي قبل حفصة أم المؤمنين مركاس وحكيري إمساء بلاد أيي حاسو نينك هذا كسر بكرتاي ودل قادن كرتا مركاس أمير المؤمنين جوابتي أي سيوحي أهي أم المؤمنين أنت قرآنك الشيء والذين توفونا دمر كان لقد انتهي 4 أشهر و10 طبعا مع الموت أفر بلود يطبعا كعشو انت كبضا ومد القادن كرتو وليس بيكون قليسا مركب أمير المؤمنين وحكسوا رجل جندي مسلمين إن وسن جندنا أما قف عيدنا مسلمين دقال هذا يغزوات كي فتوحات كأوبحية كم إذا وسن ريركيسا كم مغنانين كبضا أفر بلود يعني ضد كاسي وحكى له هجيي أو يجد تصرفات كودا هجيي أو مجتمع إن الجف كجلاني يخلط كإلاليني وحكى لما هينا هيد رقابة إلهي يضو النبي جوجو صلى الله عليه وسلم وقت عمر لودي من قضاها أو اللي يريدك كلا حكم أيوه هو يمددي وجوجي لا بوقف دعوة السقوط ماده أو سر أصول نقطة markaasuu yiri iga wareejiya hawshan yani badaaca kaasida shaqo male ma bahelin ba 2 sanaan joogaayo 2 sano cid timaado isoo gardibata maahin xayay qof kasta wuxuu gartay xaqiisa iyo waajibaadka saaran marka qofka kale ku xad gudbi maayo qofka kale to xaqiisa qaadan maayo mujtamac wuxuu ahaa ay ku weyn tahay in intaan dadka iyo waxa kale kugu hareeraysan la fiiriyo riqaabada ilaahay iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa taasna ay mar kastaba tahay midda baraaraha adduun iyo sacaadada aakhiraba keenaysa tusaalayaashaas oo dhan runtii waxa ay yihiin amthila xaya tusaalayaal cadcad oo qofku haddii uu ilaaliyo riqaabada rabbi haddii uu mar walba hawsha uu hayo shaqada uu qabanayo waxa uu qabanayo uu ku xaq dhowro rabbul izza jalla jalaaluhu ay ahaato ilaahay ku raali geli isaga ku jeeda dad kale ha qiimeyn الرقابة لمن وجوابت هذا الله له وح أي أبو ريسا عنصر صالحة ومجتمع دحديسة كوالتي كله ابن رجب نكلي له أيام وحصوا قري قصة وحليه كبر عربية ده أيام وحى نفط هذا كدم عي لين مركز وحى كويري سبق عناية وأعرابية دين بدل مجد دين بمره لكن وحى فطرتي بكجرتا وفطرتي سليم كأهيد قلبي صافي كأهابا كجرا وحولي لا يرانا أحد إلا الكواكب عد نوجد أن كواكبتي يحتكها أهين مجرتو يضيح مركز وحي كتري وأين مكوكبها يا رجل أين مكوكبها من ما اللي سميه كواكبتها isagoo muusan noo jeedin yani qofku waa inuu jiraa marka in mar walba awoodda weyn iyo riqaabada cidda u celinaya ay ahaato u xadidnaato taasaana noloshiisa wax badan ka bedelaysa xadiidkii thawban oo inuu wada garanayno saxiixa ku sugnaa xadiid thawban radiyallahu anhu ayaa wuxuu thawban leeyahay qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi لا أعلمن أقواما من أمتي وحن أجهي قالوا أما قوم أما ضد أمض إذا كمدة ويأتون بحسنات مثل جبال أمثال جبال تهامة بيضة بورها استهامة حجم قال له إن لم يذهب لأج أي لا إيمان يرى حسنات وآذوا عد إفية فيجعلها الله هباء منثورا markaasa ilaahay wuxuu ka soo qaadaya haba wax baaba ah oo aan jirin yaa laga soo ixtibaarinaya safwan baa wuxuu yiri jallihim lana ya rasuulallah nu'adde sifhum lana ya rasuulallah si aanan hatta la nakuna minhum si aanan uga mid noqon rasuulka ilaahay oo nu'adde markaasa nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam hum ama innahum min ikhwanikum aw min ikhwanina wa walalahan wa min bani jildatina وضد كنا مسلمين يعني تفيرتنا
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون كما نتصدق ويأخذون من الليل كما نأخذ. habeenkiina قيام الليل maalintiina soon iyo cibaadiyo salaad bay ku jiraan. ciladu maxay noqotay lakinnahum idaa khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha, marka ay u beyni baxaan, marka ay la keliyoobaan maxaarimta iskama ceshaan. si kale marka loo dhigo jacalu llaha ahwana annaadiriina calayhim, ilaahay bay waxay ka dhigeen midka ugu liita ee eegaya. dadki yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl. marka riqaabadaasi dhunto oo ilaalada rabbi ay kugu yaraato, wax badan oo naftaadana khalad ku ah, mujtamacana khalad ijtimaaciya ah ayaad ku dhacaysaa, aakhiradaadana saameyn ku yeelanayo oo dee masiirkaagiiba halaynaya, masiirkii dunyawiga ahaa iyo kii aakhiraba. marka aada ku toosnaatid ood qof wanaagsan oo riqaabada rabbi ay ka dhab tahay noqotidna, waxaa kuu badbaadaya oo kuu hagaagaya adduunkii iyo aakhiradii labadiiba. waxa aan kusoo khatimayaa kutub siyar iyo kutub taariikh waxa ay soo raraan ninka la yidhaahdo nin la oran jiray nuux ibnu maryam baa kutubta qaarkood ku sheegaan, ayaa waxa uu lahaa, wuxuu ahaa horta marka hore nin diin leh oo dhaqan iyo akhlaaq iyo qiyam leh. waxa uu dhalay gabar daatu diinin wa khuluqin wa jamaal, gabar aada u wanaagsan oo diin iyo akhlaaq lena wuu dhalay. addoon u shaqeeya oo la yidhaahdo mubaarakna uu lahaa. mubaarak wuxuu ahaa addoon nuux u shaqeeya, laakiin addoon ha ahaado oo qofkaas cabdiga ah ee isagu aan wax lahayn la leeyahay ha ahaado, laakiin wuxuu haystay wax dad badan oo muluuk ah iyo boqorro aysan haysan. wuxuu ahaa qof diin leh, qof akhlaaq leh, qof mabaadi iyo qiyam hagaysa leh ayuu ahaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nuux wuxuu u diray beer beerihiisa ka mid a, ayuu yidhi beertaas orod waardiye ka noqo joog. mubaarak waxaa loo diray inuu beertii ilaaliyo. beerta waxaa kasoo baxa cinab, tufaax, fawaakidii baa kasoo baxaysa. waardiye oo beerta ilaali buu ugu diray. 2 bilood maray kasoo wareegtay oo mubaarak beerta ilaalinayo. dabcan raashinkiisa waa loo geeyaa, meeshiis ku cunaa, laakiin beerta waardiyuu ka yahay oo wuu ilaalinayaa. hawsha loo diray wuu yaqaanaa, xiriirka isagii rabbi ka dhexeeyana wuu garanayaa. 2 bilood kadib baa nuux wuxuu tegay beertii oo yidhi maanta bal beerta kusoo naso. beertii markuu tegay ayuu wuxuu ku yidhi mubaarak orod waxaad ii keentaa cinab ii keen. cinabkii uu u keenay wuxuu noqday cinab dhanaan oon la cuni karin, oon bislaan. wuu ku noqday, wuxuu yidhi war mubaarak cinabkani waa dhanaan lama cuni karee, iga soo bedeloo mid macaan oo bisil ii keen. uu dhaqaaqo wuu tegay, cinabkan uu soo qaaday, wuu dhadhamiyey mise wuu dhanaan yahay. xanaaq baa qarka usoo istaagay. markaasu wuxuu yidhi waxaan ku idhi mid macaan ii keen, adiguna waxaad ii keenaysaa dhanaan. mar saddexaadkiibuu misna mid dhanaan u keenay. markaasu wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey mubaarak maanad kala garanayn macaanka iyo dhanaanka, bisaylka iyo ceeliinka ma kala taqaanid? waxaan kaa rabaa inaad maadan dhadhamin oodan garanayn cinabka. su wuxuu yidhi sayidi aniga waxaad itiri ilaali ee cun imaadana. waan ilaalinayay wallahi aladi laa ilaaha hayru inaanan dhadhamin. ilaahay baan ku dhaartee ma aqaan suu u dhadhamo geedkan aan kuu keenayo, waayo muhiimadaydu maahayn inaan cuno, umana fasaxnayn. waxaad igu tiri ilaali, wawallahi aladi laa ilaaha hayru maa raaqabtuk wamaa raaqabtu hayrak inamaa raaqabtu allah. waxaan ilaalinayay oo kormeer ii ahaa, adigu imaad waardiyeynay markaan iska daynayay, cid kalena imaad soo dirin, camero meesha iguma rakibnayn. waxaan ilaalinayay oo keliya ilaahay bay ahayd, ma aqaan dhadhankiisa ha igu dhibsan. natiijadii waxay noqotay in hadalkii uu noqdo hadal uu aada ugu diirsado hantiilihii
هذا الوقوق موسده والقوي الأمين وأنك آمنك قوي إلى لنا ممتلكاتك أيها انتدى ضدك إساقو ماشا هكسنا يا أيتهاي أراقب الله جل جلاله إلهي إلى الذي سانك قبنايا إساقا أيان رالي أهانشيه سنادينيا وحن ربائنا كلا تشتو مباركم قبرنا هيدا أتقلني سيدي أخلاق دين تلي وحا إقصر دوني ضد نور بو الشهري سلطو يجاه يمنصب له أنو لكن ضدك كما فرح سليم لكن حاضي ولا ترين لهي وحيري دور أرمود بو الشهري كم إذا هيد وقتك النبي صلى الله عليه وسلم قفك وحا لوغو رنجلي خلق يدين ما أنت أولا جوغنا جاه iyo maal baa lagu guuriyaa lagu raacaa yuhuud waxbay ku raacaan umadaha kale waxbay ku raacaan marka adiga khiyaarka iska leh laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa cidda diinta leh khuluqa leh dhaqanka wanaagsan ayaa waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay dadku dooran jireen wal mar'u ma'a man ahab qofkuna cidda uu jecel yahay inuu hadhowdi qiyaamaha la soo xashrismaya la soo xashrinaya adigu cidda aad dooratid baad hadhowdi qiyaamaha la iman doontaa taladaydu waa intaas weey niyadiisa kumay jirin because waa adoon oo kumu fikirayn ma ahayn adigu sabaat diyaarso ama hawsha meelu ka soo gali karabo uma furnayn isaga warkii laakiin taladii ku jirtay oo lillahi ilaahid u sheegay mujtamacuna markaas dabaqaadka kala xirxiran baa la ahaa ninkii warkii buu qaatay nuux markaas mar kale misna ku soo noqday wuxuu yiri a'tatuka liwajhi allah ilaahi dartiisa ku xireeyay warkan wanaagsan baa tahay mu'mina mar labaad buu misna wuxuu ku yiri waxaan rabaa gabadhayda dadka oo dhan inta fiiriyay cid ka wanaagsan oo ka aaminsan oo ka akhlaaq badan ma helayeen inaan kugu daro gabadhii buu sheegay oo la tashaday wuxuu yiraahdaa ninka noocaas arintaas aan dhex martay marka maxaad ka oranaysaa waxay tiri aabo hadii adiga aad sidaas garatay oo wanaag igu talinaysid anna radiitu wixii aad adigu ku talisay raali baan ka ahay muraqabatan lillah ano ilaahay ka xishoonayo oo muraqabadiisa tixgelinaya ayaa markaaga aaba yeelay way isguursadeen natiijadii ka soo dhaxdalatayna waxay noqotay Abdullah ibn Mubarak oo muhaddith adduunka oo dhan ku iftiinsaday nuurkiisa iyo cilmigiisa ayaa meesha ka soo baxday macna waxa weeye marka aad mar walba jawaab u heshid ar-riqabatu liman waxaad noqonaysaa cunsur saalixa maanta wadankan ay joogno waxaad arkaysaa qof shaqo loo diray oo marka kii kormeerka ahaa uu yimaado active ah oo shaqaynaya marka kaamirada uu arkayo active ah oo shaqaynaya marka kaleetona cagureejis sameynaya ma aha qiyamkii islaamka qofkaasina jawaab uma helin ar-riqabatu liman waxa meel walba tusaale ka soo qaado yani naftaada ka soo bilow gurigaaga ku xiji usradii mujtamaci islaamiga aha ilaa caalamka oo dhan u soo faaf waxa uu qofku xal naftiisa u keeni karaa mujtamaca ku hareeraysan xal u heli karaa marka uu ahaado qof riqaabada rabbi hoos jooga oo ilaalinaya oo aan wax kaleeto oo ka hooseeya aysan xanibayn aysan xadidayn ay tahay midda kaliya xumaan ka reebaysa samaana u soo jiidayso u horseedaysa ay tahay ilaahay baan ilaalinaya إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب أقول ما سمعتم جزاكم الله خيرا تسمع شكوري وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم آيات أحاديث